Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalka maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadalno labada wad ugu fudud aad ku ogaan lahayd internet kuga xiran passwordkiisii. Waxaa laga yaabaa internetka passwordkiisa inaad u baahan tahay aadan aqoon qof inuu kuu geliyay markii ugu horeysay, laakiin hadda u baahan tahay in mobilkaaga gelisid ama qof kale inaad u geliso. Marka ugu horeysa waxaad right click dhehaysaa iconka internetkaaga, waxaad dooranaysaa optionka ugu dambeeya oo ah open network and internet. waxaa ku soo bixi doona screen noocan ah, waxaad dooranaysaa wifi. Optionska dhinaca right kan ugu koreeya dooranaysaa oo ah change adapter option. waxaad dooranaysaa wifi, double click si. waxaa ku soo bixi doona laba option oo ah detail iyo wireless property. Detail haddii aad doorato waxaad arki doontaa IP addresskaaga iyo default gateway iyo subnet maskiga. waxaad dooranaysaa wireless property. waxaad sii dooranaysaa optionka ah security. haddii show character aad tick saarno waxaad arki doontaa passwordka internetkaaga. haddii wadadan ay ku shaqeynaysay waxaan tijaabinaynaa wadada labaad oo ah search box. waxaad ku qoraysaa control panel. waxaa ku soo bixi doona optionskan badan. haddii category ku saarnayn waad bedelaysaa, waxaad dooranaysaa category. waxaad sii dooranaysaa meesha network and internet ay ku qoran tahay. kadib waxaad sii dooranaysaa kan ugu koreeya oo ah network and sharing center. waxaad sii dooranaysaa change adapter setting. mar kale waxaad double click siinaysaa wifi. waxaad dooranaysaa wireless property. waxaad sii dooranaysaa security. mar kale waxaad ujeedaa passwordkaaga. haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay fadlan la wadaaga asxaabtaada. sidoo kale ha ilaawin subscribe inaad dhahdid, sidoo kale share and like.